War degdeg ah oo hadda naga soo gaaray gudaha magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xaalad kacsanaan ah ay ka jirto qaybo ka mid ah caasimadda kadib markii gudoomiyaha Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Muungaab uu soo saaray amar aad u culus oo lagu burburinayo dhismooyin iyo guryo ku yaala dhulal muhiim ah. Go'aankan oo u muuqda mid lagu gumaadayo hantida shacabka ayaa durbaba kiciyey dareenka boqolaal qoys oo naxsan, kuwaas oo markii horeba la tacaalayay dhibaatooyinka nolosha. Amarkan oo ah mid aad u kulul ayaa dhigaya in la simo guryo ay degan yihiin dad masaakiin ah, kuwaas oo aan haysan meel kale oo ay u baxaan, waxaana muuqata in maamulku uusan u naxayn dadka tabaalaysan. Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada ammaanka la faray inay fuliyaan amarkan, iyadoo aan loo eegayn duruufaha bani'aadanimo ee jira. Shacabka Muqdisho ayaa isweydiinaya sababta xilligan loogu soo beegay burburintan, iyadoo lagu jiro xilli adag. Dadka deegaanka oo aan la hadalnay ayaa muujiyey cadho aad u ballaaran, iyagoo ku tilmaamay amarka Muungaab mid dulmi ah oo lagu barakicinayo dadka rayidka ah. Waxaa jira cabsi xooggan oo laga qabo in xaaladdu isku beddesho gacan ka hadal iyo dibadbaxyo waaweyn oo ruuxa magaalada Muqdisho. Haddaba, maxay tahay ujeeddada dhabta ah ee ka dambaysa in dhulka lala simo guryahan? Ma tahay mid loogu adeegayo danta guud, mise waa dano gaar ah oo lagu naas-nuujinayo dad gaar ah? Su'aalahan iyo kuwo kaleba waxay ku jiraan maskaxda muwaadin kasta oo Soomaaliyeed, kaas oo arkaya gurigiisii oo lagu duminayo indhihiisa horteeda. Waxaan halkan idiinku soo gudbin doonaa muuqaallo naxdin leh oo muujinaya bilowga burburinta iyo baroorta hooyooyinka iyo carruurta lagu qasbayo inay bannaanka u soo baxaan. Daawade, xaaladda Muqdisho waa mid aad u kacsan, waxaana laga yaabaa inay saacadaha soo socda dhacaan dhacdooyin aan horay loo arag. Maamulku ma tixgelin doonaa baaqyada shacabka, mise wuxuu sii wadi doonaa qorshahan lagu duminayo guryaha ku yaala dhulalka lagu muransan yahay? Halkan kala soco wararkii ugu dambeeyey iyo falanqayn qoto dheer oo ku saabsan amarkan culus ee Muungaab ka soo baxay ee bulshada dhan kiciyey. Ka dhiibo fikirkaaga qaybta hoose oo nala wadaag waxa aad ka qabto dulmigan maalin cad ka dhacaya caasimadda Soomaaliya ee aan loo meel dayin. Geesta kale, magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in xukuumadda Somalilan ay soo saartay go'aanno aad u culus oo durbaba kiciyey dareenka malaayiin qof, kuwaas oo markii horeba ku jiray xaalad feejignaan ah. Amaradan cusub oo loo arko kuwo gebi ahaanba beddelaya nidaamkii hore ayaa u muuqda kuwo saamayn weyn ku yeelanaya amniga, siyaasadda iyo nolosha bulshada, iyadoo maamulku uu shaaca ka qaaday inaan loo dulqaadan doonin cid kasta oo ka hortaata fulinta qorshahan cusub. Go'aanadan oo ka kooban qodobo dhowr ah ayaa dhigaya in la qaado tallaabooyin adag oo lagu xaqiijinayo xasilloonida, balse dad badan ayaa u arkay inay yihiin kuwo cadaadis dheeraad ah ku keenaya muwaadiniinta tabaalaysan. Wararka aan helayno waxay tilmaamayaan in ciidamada amniga la faray inay galaan heegan sare oo ay gacanta bir ah ku qabtaan cid kasta oo isku dayda inay kiciyaan rabshado ama ka hor yimaadaan awaamiirta wasaaradda arrimaha gudaha. Shacabka ku nool magaalooyinka waaweyn sida Hargeysa, Berbera iyo Burco ayaa hadda ku jira xaalad jahawareer iyo walaac isugu jira, iyadoo suuqyada laga dareemayo dhaqdhaqaaq ka duwan kii hore. Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ku sifeeyey go'aankan mid ka mid ah kuwii ugu cuslaa ee ay qaadato xukuumaddu muddo dheer, waxaana jirta su'aal weyn oo dadka maskaxdooda ku soo dhacaysa oo ah sababta xilligan loogu soo beegay amaradan, iyadoo lagu jiro xilli aad u xasaasi ah. Maamulka Somalilan wuxuu sheegay in ujeeddadu tahay ka hortagga khataraha soo kordhay, balse dhaleeceeyayaasha ayaa aaminsan inay jiraan ujeeddooyin kale oo qarsoon, kuwaas oo laga leeyahay dano siyaasadeed. Xaaladda ayaa saacadihii u dambeeyey noqotay mid aad u kacsan, waxaana jira baaqiyo iska soo horjeeda oo ka soo baxaya qaybaha kala duwan ee bulshada. Daawade, maahan markii ugu horeysay ee go'aanno caynkan oo kale ah ay soo baxaan, balse amarkan hadda soo baxay wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore sida uu u taabanayo laf-dhabarta amniga iyo dhaqdhaqaaqa dadweynaha. Waxaan halkan idiinku soo gudbin doonaa muuqaallo naxdin leh iyo tafaasiil dheeraad ah oo muujinaya bilowga dhaqangalka go'aanadan iyo sida ay dadku uga falcelinayaan. Hooyooyinka iyo carruurta ayaa ah kuwa ugu badan ee dareemaya saamaynta durbaba ka dhalatay amarkan, maadaama uu xadidayo waxyaabo badan oo noloshooda muhiim u ahaa. Haddaba, maxay tahay danta dhabta ah ee ku jirta in la soo saaro amarro bulshada kiciyey? Ma tahay mid loogu adeegayo shacabka, mise waa qorshe kale oo lagu sii fogeynayo rabitaanka dadweynaha? Halkan kala soco warar ka sii kulul intan oo aan idiin soo gudbin doono daqiiqad kasta. Fadlanka dhiibo fikirkaaga qaybta hoose oo nala wadaag waxa aad ka qabto go'aanadan Somalilan ka soo baxay. Ma yihiin kuwo loo baahnaa, mise waa kuwo dhibaatada sii kordhinaya? Ha iloobin inaad la wadaagto asxaabtaada si ay u ogaadaan xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta dalka oo aan cidna laga qarin karin, waayo xaalku waa mid u baahan feejignaan heerkeedu sarreeyo iyo in indhaha lagu hayo tallaabo kasta oo maamulku qaado, iyadoo laga baqayo in xaaladdu faraha ka baxdo haddii aan xal degdeg ah la helin. Kani waa warkii ugu xasaasisanaa ee maanta soo baxa, waxaana muuqata in saamayntiisu ay muddo dheer sii jiri doonto.
waxaana 26 gobol iyo degmo oo ka tirsan dhulkaas laga dareemayaa gariirka go'aankan. Haddaba la soco waxa soo kordha saacadaha soo socda. Halkan waa isha xaqiiqada ee ha ka fogaan shaashadda. Imaatinka Dube ee Hargeysa ayaa loo arkaa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee sanadkan dhaca, maadaama uu ahaa nin si weyn u difaaci jiray calanka iyo jiritaanka dowladda federaalka markii uu joogay Muqdisho, isagoo kaga soo degay garoonka diyaaradaha ee Cigaal si lama filaan ah. Dube oo hadal kooban ka jeediyey madaarka ayaa adeegsaday weed durbaba bulshada kicisay, isagoo yidhi idinkamaan maqnayn ee waa idiin maqnaa. Hadalkaas oo dhaliyey falanqayn baaxad leh iyo dood kulul oo ka dhex qaraxday baraha bulshada. Dadka reer Hargeysa ayaa si weyn u hadal haya ujeeddada ka dambaysa soo laabashada ninkan oo muddo dheer ka fogaa dhulkii uu u dhashay. Maamulka Somalilan ayaan weli si rasmi ah uga hadlin imaatinka Dube, balse waxaa muuqata in jawigu uu isbeddelayo. Dube oo lagu yaqaano aftahanimo iyo hadallo kulul ayaa u muuqda mid raba inuu bog cusub u furo nolosha siyaasadeed ee Hargeysa. Su'aalaha ugu waaweyn ee hadda taagan ayaa ah, ma cafis ayuu helay, mise wuxuu qayb ka yahay qorshe siyaasadeed oo cusub oo lagu wajahayo loolanka gobolka? Waxaan halkan idiinku soo gudbin doonaa tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan cidda garoonka ku soo dhoweysay iyo halka loo galay. Jawiga magaalada Hargeysa waa mid aad u kacsan, iyadoo qof kastaaba uu isweydiinayo waxa isbeddelay ee keenay in Dube uu maanta Hargeysa yimaado. Isagoo mar ahaa codka ugu xooggan ee dowladdii Farmaajo, hadda wuxuu dhex lugaynayaa jidadka Hargeysa isagoo dareemaya xornimo buuxda. Xaaladdan ayaa kicisay dareenka dadka taageersan midnimada iyo kuwa u ololeeya gooni u goosadka Somalilan, maadaama Dube uu ahaa shakhsi saamayn weyn ku leh labada dhinacba. Daawade, maxay kula tahay soo laabashada Dube ee xilligan xasaasiga ah? Ma tahay guul u soo hoyatay Somalilan, mise waa xeelad cusub oo lagu doonayo in lagu dhex galo quluubta dadka? Waxaan idinla socodsiin doonaa sawirrada iyo muuqaalada ugu dambeeyey ee laga soo qaaday markii uu garoonka ka soo degayey, isagoo u muuqda mid faraxsan oo isku kalsoon. Kani waa war kulul oo aan looga baran saaxadda siyaasadda, waana mid saamaynteedu ay gaari doonto meel kasta oo Soomaali degto. Ha ka fogaan shaashadda oo nala soco si aad u hesho wixii ku soo kordha sheekadan xiisaha leh ee Cismaan Abukar Dube iyo Hargeysa. Ka dhiibo fikirkaaga qaybta hoose oo noo sheeg, ma la dhihi karaa Dube wuxuu noqon doonaa buundada isku xirta labada dhinac, mise waa dab loogu talagalay in lagu huriyo siyaasadda markii horeba cakirnay? 26 gobol ayaa indhaha ku haya dhacdadan lama filaanka ah ee ku soo beegantay xilli xaalku aad u kulul yahay. Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo ku sugan gudaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Waxaa jira baaritaan ballaaran oo ay bilowday dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ku saabsan warar xasaasi ah oo sheegaya in hogaamiyaha golaha ku meel gaarka ah ee Koonfurta Yemen Caydaruus al-Subaydi uu ka dhoofay ama uu si qarsoodi ah u soo maray garoonka Muqdisho. Arrintan ayaa qalisay gariir siyaasadeed iyo shaki aad u weyn, maadaama Subaydi uu yahay shakhsi si weyn loogu muransan yahay gobolka, isla markaana xiriir dhow la leh dhaqdhaqaaqyo saamayn weyn ku leh amniga iyo madax bannaanida Soomaaliya. Shacabka Soomaaliyeed ayaa hadda aad u kacsan, iyagoo isweydiinaya sidee bay ku dhici kartaa in nin caynkaas u weyn uu soo galo ama ka baxo wadnaha caasimadda iyadoo aan la ogayn, mise waxaa jira heshiisyo hoose oo laga qariyey indhaha dadweynaha. Baaritaankan oo ah kii ugu xasaasisanaa ee sanadkan ka dhaca garoonka diyaaradaha ayaa lagu bartilmaameedsanayaa saraakiisha sare ee laanta socdaalka iyo nabad sugidda si loo ogaado xaqiiqada jirta. Haddii ay dhab noqoto inuu soo maray Muqdisho, waxay dhabar jab ku tahay sumcadda dowladnimada iyo nidaamka amniga ee dalka, waayo ninkani wuxuu caan ku yahay u ololeynta gooni u goosadka, taas oo lida ku ah mabaadida dowladda Soomaaliya. 21 saac ee u dambeeyey waxaa garoonka ka jiray xaalad kacsan, iyadoo qalabka lagu baaro dadka iyo kaamirooyinka qarsoon dib loo eegayo. 1 iyo 2 qof maahan ee waa 10 qof oo laga shakisan yahay inay fududeeyeen arrintan. Haddaba waxaa taagan su'aal taabanaysa xididada qarannimada oo ku saabsan cidda bixisay amarka iyo cidda damaanad qaaday nabadgelyadiisa. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay si dhow ula socoto natiijada baaritaankan, iyadoo laga baqayo in fadeexad ballaaran ay ka qaraxdo gudaha xukuumadda. Daawade, maxay kula tahay arrintan? Ma tahay dayacaad dhanka amniga ah, mise waa khiyaano qaran oo la rabo in lagu dhabar jibiyo qarannimada Soomaaliya? Halkan kala soco tafaasiil dheeraad ah oo aan idiin soo gudbin doono daqiiqad kasta. Fadlan ka dhiibo fikirkaaga qaybta hoose oo nala wadaag waxa aad ka qabto baaritaankan kulul ee ka socda garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Ha iloobin inaad la wadaagto asxaabtaada si ay u ogaadaan xaqiiqada dhabta ah ee laga qarinayo shacabka, waayo xaalku waa mid u baahan feejignaan heerkeedu sarreeyo. Kani waa warkii ugu xasaasisanaa ee maanta soo baxa, waxaana muuqata in saamayntiisu ay muddo dheer sii jiri doonto. Halkan waa isha xaqiiqada ee ha ka fogaan shaashadda. dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.